konton iyo shan kun oo qof ayuu Mareykanka qaadanayaa konton iyo shantan kun oo qof waxay ku guuleysteen barnaamijka DV 2024 lottery-ga barnaamijkan oo qof walba green card la siinaa dadka dawladda Mareykanka waxay ka soo daabuleysaa caalamka oo idil aarta meel walba joogta waa salaamantiin maxamed faarax waxaa la gaaray xilligii lagu dhawaaqi lahaa dadkii ku guuleysay barnaamijkii baqtiyaa nasiibka ee applicationkiisa sanadkii hore dadkii buuxiyay ayaa waxaa lagu dhawaaqay dawladda Mareykanka ku dhawaaqaysaa cidii ku guuleysatay insha Allah beriyo sabtiya taariikhdu markay tahay bisha shanaad 6 2023 saacadda Mareykanka markay tahay 12 PM Eastern Time xilliga saacadda Afrika waxaa qiyaasteeda ay tahay 7 PM cishihii lama gaarin saan rajaynayo ayay ku dhawaaqaysaa hal website oo kaliya ay dawladda Mareykanka u ogashay dadka inay ka fiirsadaan cid alaale cidii buuxisay website-kan ayay ku ogaanaysaa in la qaatay iyo inaan la qaadan website-ka waa lacag la'aan waa free website-yaasha kale ha ka fiirnina oo lacagta ah waa been website-kan dawladda iska leh lama ha garan karo waana free website-ka magaciisa waxaa la yiraahdaa dvprogram.state.gov website-kan gashid 2024 intern status check ayaad ku dhufanaysaa check status baa leedahay si aad u ogaatid statuskaaga in loo qaatay in kale continue ayaa haddana website gudaha usii galaysaa waxaa lagaa rabaa 4 macluumaad inaad haysatid last year 2022 markaad buuxinaysay waxaan rajaynayaa inaad printer garaystay confirmation numberkii iyo macluumaadka markaad buuxinaysay ama aad sawir ka qaadatay macluumaadkaas ayaa lagaa rabaa confirmation numberkii ayaad gelinaysaa meesha koowaad labo waxaad gelinaysaa family name ama last name kaaga magaca awowgaaga ayaad gelinaysaa sida u qornaa markaad buuxinaysay 3 sanadka dhalatay ayaad gelinaysaa hadaad dhalatay tusaale ahaan 1983 ama 2005 whatever sanadka dhalatay ayaad gelinaysaa 4 authentication macnaha inaad robot tahay computer tahay inaad qof binaadinta la hubinayaa numberka meesha ku qoran oo kuu soo baxaa ayaad gelinaysaa kabacdi submit ayaad leedahay 4tan markaa submit dhahdid waxaa kugu soo baxayo congratulation waa lagu qaatay ama laguma qaadan haddii lagu qaadanin dhib ma lahan insha Allah sanadka dambe buuxi mar walba waad buuxin kartaa waxaan aqaan badan oo ku celceliyo buuxi ilaa markii dambe dawladda Mareykanka loo riga barnaamij ku guuleystay Mareykanka imaaday marka sanadka dambena wuxuu furmi doonaa insha Allah sanadkan ku jirno bisha 10aad wuxuuna xirmi doonaa la bisha 11aad markuu furmo ana idin la soo socodsiin doona insha Allah sanad walba barnaamijka uu furmaa markaas ka faa'iideyso qofka hadda kor buuxin jirina ha buuxiyo okay dadkii ku guuleystay maxay sameynayaan si fiican oo la socda haddaad ku guuleysatay oo congratulation ku dhaho waad ku guuleysatay waa lagu qaatay dhowr waxyaa laga rabaa waa inaad diyaarsataa waxbarashadii aad gashatay ama application-ku hore waxa ku buuxistaa kaliya aad ku soconaysaa waxbarashadaada haddaad sheegatay high school ama jaamacad waa inaad shahaado ka haysataa haddaad shaqo job experience aad sheegatana waa inaad shaqadaas aad ka haysataa qoraal rasmi ah haddaad Soomaali tahay baasaboor Soomaali haysatid waxbarashadaada aad sheegatay inaad Soomaali high school ka dhamayso ama jaamacad dooro inaad ku martid waddanka Djibouti safaaradda Mareykanka ay ku leedahay ha dooranina Kenya iyo Ethiopia waayo waxbarashada Soomaaliya shahaadada ma qiimeyso maalmahan soo marka fadlan dadka ku guuleysta lottery-ga oo Soomaaliga ah oo dawladda Soomaaliya aqoonta waxbarashada ka haysto doorta Djibouti-na ku mara insha Allah munaanadkii akhyaarta badana u buuxiyay sanadkii hore insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ku guuleysataan insha Allah waxaan rajaynayaa qof walba confirmation numberkiisii iyo magaca last name-kiisa u qornaa iyo sanadkiisa inuu haysto hadduu kaa dhumay waa nasiib darro ma heli kartid kaliya emailkaaga ay ku qornaa application-ka waxaa laga yaabaa inay state department kula soo xiriiraan waa haddaad dhumisay mataqaanaa ama aadan print garaysanin guul ayaan idin rajaynayaa haddaad ku guuleysatay waa bilow ilaa interview inaad martid waaye processor martid waaye caafimaad martid waaye shahaadada waxbarashada verification lagu sameeyay waaye dad yar oo ku guuleysta barnaamijka weli la keenin waayo waxay qorteen
ma ismaaj garanayo marka qof walba ku guuleystay macnihiisa maaha inuu Mareykan imaanayo waxaad soo qoratay ayaa la baarayaa haddana inay sax tahay ka bacdi waa lagu qaadanayaa anyhow dadka ku guuleystay waxaan rajaynayaa Mareykan imaadaan ku soo dhawaada Mareykan insha Allah dhulkii barakeysnaaya Mareykanka maxaan faarax videogan la wadaag dhamaan asxaabtiina social media qaasatan dadkii barnaamijkan DV 2024 buuxiyay sidee u ogaadaan insha Allah in la qaatay ina la qaadin haddaadan buuxin weliga allaha barnaamijkan green cardka la siinayo oo digital la siinayo sanadkan isku diyaari saad u buuxsatid mar kale oo idin la soo socodsiin doonaa macluumaadkaas maxaan faarax idin kaga tagayo